بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درر محاضرة ونوس وشدي إلهنا تبارك وتعالى ميزانك حسناتك وصاروا إننا الله ينوضع أنفعه وقتك قابنا إنو الله من الشيخ سؤال دور للسوء قد بيي أيانو قد بيننا إن شاء الله سؤالها قارنا موضوعي بسابسيين قارنا ويكبحسين وسؤال عامة كوا موضوع الشيخ وكهل لي كسابسن ودقالها أيام كور مرينا هذا وقتك وحين وصهره كوا كلام كحشينينا هذا وحين وصهره ويانا تدك سوقري رالها هذا سؤال كوبات وحولي سائلكو الشيخ وننكتها شري شركة سيجار maalkiisa ma lagu bixin karaa meelaha caamka ah oo shacabka wax loogu qabanayo bismillaah horta marka hore waxa idinku baraarujin lahaa culimadu waa isku kitaabna way eegayaan marka su'aalaha noocan oo kala maadaama sheekhu uu joogo marar fara badan laga yaabo inay culimadu ka hadashay in ayaga weydiisaan ku daysaan aad bay wanaagsanaan lahay wadaadka cusub iska lugaynaya wax cusub oo soo kordhinaya ma jiree hadii aan la lahayn uu cusub yahay cusaybkaasuna lagu eeganayn oo laga yaabo in laga doonayo mararka qaar kood in laga yara faa'iideysto wixii ragga hore diiday in laga yaran inuu ka yara neefiyo kaas وكل أنا توا كفي شجنا هذا وحين هراء فهم واقع نيروبي يصل الله شقي سكينية شيخ من أنا كريحي ويقف كوحشة جاي مفتقة وحلا شرط يا أقون إنه لا هي أمانة لا هي الدين تلاقوا آمنية واقع أنا أقون لا واقع على شوقه إنه أقون لا ميجي مقالة ينكا دبدة قربها من ولا بواقع ما يلاقي واقع كحساب تنكيس ولا سنوات مدوية قضية رنتي سيجارك لأنه حرانيها علماء الإسلام كواسرة وافقين قال هذه هذا كورمية كي كوسود وفينا يا نصوني هاي تشك كوكوس وقري مال الحرام كتبها علماء كقرين مركا أي كورمية سيدا لو قد بحيو ها ولا يسكع علين دونا متى سيدا غير الشرعي قال لو قاضي أي لو علين دونا دناها جودنا ولا جو بحين ها ودوينك مدارسك iyo horumarka ijtimaaciga ah ee magaalooyinka iyo bulshada wixii awqaaf ah ajri laga doonayo lama gelinayo dhaado culimadu laakiin meelaha danaha guud ayaa lagu bixin doonaa dareen noocaasina runtii haduu jiro oo dad intay halka ka shaqaysteen toobad keenay oo waxoodii la soo diyaar garoobay oo halka ku bixinaya haday jiraan runtii waa u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa toobadkeenka inuu ka aqbalo بدل في عنا حرانتا وكتنا سلي وصيو وانا رنتي من آدم مهمة ما انتو قفكوا فرصتها يستا حرانتا انتو كعنتا كقاضو انو مال عصبك بالعابة والله أعلم جزاك الله خير شيخ سؤال شلبات وحوي ما حكم الربا في دار الكفر هل تجوز إذا كانت الإجابة نعم فما الدليل وبنانت هاي بلك قال هذا مركا لقونا لي هاي إن الربا الله استعماله هذه جوابته نعمته ما حد دليله تفضل شيخ isaga bada saailku ka jawaabay taase حرامته وحرام والحرام حرام على الجميع حرامته كما حلالو بيسين ودنك مسلم كاينتود ka tagto wadamada gaalada tagto ribadii saa'ilahay oo ku joojiyay ayay ku taagan tahay qofka muslimka ana meel waxa laga cunayaa uu ribaya oo doofaariya oo khamriya oo gabar jirkeeda iibisawya inuu jooga maayo in iskaga soo haajiro waayo eeriyadaas waxa ay u diyaarsan tahay inaan xalaal iyo xalaal kala yaagin bal dakhliga uu bato inuu xaraam noqdo wax daliil oo la weydiinaya ma jira daliilku waa suuratul baqara ku sugnaa xadiis saxiixa ku sugnaa marka ribo waa xaraam sida ilaahay u xaaraantinimeeyay wax lagu xalaaleyn karana ma arkayo wallahu a'lam
جزاك الله خير شيخ. سؤال كل واحد لنا هاي الشيخ وحن كنا ولا هاي ميل بنكي إسلامي عن لهين مركز العكسة دلفولكا دلساركا حقيلو بحنايا وهبون تيوري كير دو ده هاي معنا حوالي سيار كلا الشقي مركز ما بنكي كانوا قصوا تجي حولها دلساركا كويمت مسوان سوق قاضية هذا سوق قاضو حقين كو بحنايا وارهن دي بدن runtii bulshadeena qurba joog ana dhibaato aad iyo aad u badan bahaysata oo qofkii wixii uu dhaqaaqay meeshii uu maraba sida macruufka xaraan kama dhamaanayo dhinacu maraba waxbarashadii tijaaradii shaqadii caymiskii meeshii wax ka iibsanayay meel walba xaraantii baa taala arrin aad u adag weeye qofkiina ihaana iyo dulli uu ku galayo وتين هروجا صه هذا الله بانك ربا داين الله تعامل شما هذا تجار هليس ضد محسنين هو صم فلايا كوسم فلا هذا هليس بانك أنا أتكمل أن توت كافتون توي هدي عربة إن وحكاس الرعان إن وحكاس الرعان إن تكون بحسم عليه دنها جود أيوم بين قريصة توشيخنا كدر إياها كسي كردي الله أعلم. شوقت وأنت شيخ بحي السؤال شكله واحد لدى الشيخ أنا الشيخ دلال كورن دكان هدي أن ألعب كسوق هذا وأن وحصارته ما بنانته هاي بس ما بنانا. بسم الله. دلال كورت ده دلال مرك شق أهان مرك الله يعقوب قف كي شق قبنا إياه. حلال بوي هاي وحقبنا طبعا oo waxa lagu mutaystaa xoog ama xoolo inaad xoog wax ku soo saarto iyo xoolahaaga in wax soo saaraan oo in xoolahaaga shaqeynayaan iyo in maskaxdaada iyo muruqaaga ay shaqeynayaan labada mid baa lagu qaadan karaa marka qofkii hadduu tacab sameeyay dad isku soo dhaweeyay dilaaristuna hada jeer way iska howl badan aad marwaxadiisa intuu wax marwaxadinayaaba waqti dhan ah oo uu isu keenayo isu muslaxayo marka sideeda looma diidana tan ibn Abbas uu leeyahay inuu dilaal noqdaaba la diidan yahay waa iibka noocan ah laakiin iib oo dhan maaha qofku dilaal uu noqon karaa laakiin waxyaabaha dilaalintu had iyo jeer ay caadaystaan ayuun baynu ka digi lahayn oo ay ka mid tahay beenta intuu isleeyahay isu jiid buu beena badan isticmaalaya mararka qaarkood dhaxkasiib buu sameeyaa waxbuu ka dhax saaraa mararka qaarkood dulsaar buu sameeyaa reer miyigeenu markay silada joogaan gacanta ayaa inta marada lagu yara hagoogo ayaa intaas soo horay iyo intaas soo dambe siladaha qaarkood inay dadka wada leeyeen ma aqaanay marka ninkii reer miyiga ha uu dawaqayaado dushiisa lagu ciyaaraya meel isla marayaba ma garanayo marka sidaas oo kale inay noqoto ma imika tan oo kale haduu wax lagu dhiibo oo lagu raa soo iibi laba waa midun in lagu cayimo oo lagu raa waxa soo siisaa 100,000 wixii dheeraadka ana adaale taas waa mid weeye iyo in la yiraahdo shayga 100,000 soo sii dilaalkana ana ku siinaya labadaas inay kala cadaadaan weeye laakiin iyadoo dilaalkii aad qofkan ku leedahay inaad haddana wax kala sii dul saarata maya hadduu ku yiri 100,000 ii soo sii dilaalkana ana ku siinayo 110 laga siisto 10ka waxa leh qofkii isaga ahaa ee aad u soo iibinaysay alaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninbu diinaar u dhiibay markaasuu ku yiri neefii soo iibi neefkii buu soo iibiyo haddana neefkii buu sii iibiyo 2 diinaar sii xariifa buu noqday wuxuu u keenay nabiga diinaar iyo neef oo neefkii uu soo iibsado diinaarka soo siiyay ayuu fursad u helay oo ila suuqu waa iska xore 2 diinaar buu ku iibiyay wuxuu la soo noqday isagoo diinaarkii loo dhiibayna keenay oo macaasha neefkiina waa sidaa nabigu uu duceeyay calayhi salaatu wasalaam alaabtiisana uu ka gudoontay ninkaas halka culimadu waxa laga faa'iideysanayaa bay leeyihiin mabiicda alaabta la iibinayo wixii dheeraad ka soo baxa waxa iska leh qofkii isaga ah imika haduu amaano qofku dhiibto ama agoonad wax u hayso oo adigoon u sheegin aad iskaga shaqaysato wixii ka soo baxay qofkii baa leh wixii uu ku ogolaado ku siiyay mooyaan way dhacdaa marka had iyo jeer wax lagu dhiibanayo waxa tidhaahdaa lacagtu meesha oo limeysay waan ku shaqaysanayaa maalintaad u baahatana de waan ku siin doonaa laakiin adigoo ka qarinayo iska dhigay inay taalo ama akoonka ku jirta ha ku shaqaysan
haddaad ku shaqaysanaysa waxay baabkiiba isbedelaya wadiicada oo waxay noqonaysaa baabul qardi amaah bay galaysa marka ka amaah oo heshiis amaah kala saxiixda qiyaamada lama ogola wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ سؤال كلا waxay leedahay wax nooga ifi sheekh nidaamka hanti wadaaga iyo raasamaaliyadda waa isku macno iyo saameynta ay ku yeelan karaan iqtisaadka islaamiga abu ka wadaan malena kulay waa barnaamij u baahan waa arrin u baahan muxaadaraad bay u baahan tahay oo nidaamka hanti wadaaga iyo shuuciyadda iyo nidaamka raasamaaliga ee reer galbeedku ay isticmaalaan waa wax u baahan kutubta laga qoray inaad maaragtay wax ka akhrido oo qolana inay yidhaahdeen dadkiibaa wax wada leh ilaahay iyo ummaduna toona waxba ma lahe maamulkaa wax leh kuwan kalena inay yidhaahdeen shakhsiga iyo lahaanshihiisa iyo waddooyinka u marayo xor buu yahay dadkana wuu yeelan karaa dalku yeelan karaa oo aad arkayso dabaqadda u sarraysaa inay tahay qabiilka ugu laandheeraysa halkay dadka kale ku dacaydeeyeen qabyaaladda iyaguna nidaamka raasamaaliga ayaa qabyaaladooda ay noqotay almuhimtaasi waa arrin imika aan la sharxi karayn oo waqti dheer u baahan marka laakiin ina xuseynaya waxa weeye ganacsatadiinu marka ganacsiga ku jirtaan nidaamka dhaqaale iyo xeerarka aad qoraysaan iyo heshiisyada shirkaduhu yeelanayaan iyo bulshada wax wada yeelanaysa waxa lagama maarmaan intoo culimada u keentaan in ta'siil sharciga lagu sameeyo haddii shirkad la dhisayo la samaynayo طبعا هشيس بي يالانيسا لائحة iyo qodobo heshiisa bay yeelanaysa qodobada heshiiska marka soo qaadataan shirkadaha caalamiga ka soo qorataan waxa awlamada hadiya jeer oo la socda la yiraahdo waa caalami nidaamkiisa inta badan dhaqaale yuhuud baa ku salleh masaadirtiisuna ay ka soo fushaa wala budda min ta'siil sharci lagu sameeyaa laga maarmaan inta culimada u keentaan ay idinka eegaan dabeetana bunooda ama qodobada shariicada khilaafsan waa in laga saaraa saasay wax ku ansixi karayaan dadka qaar kood baa waxa dhacda inta wixii iskaga ceeshaan ay iskaga shaqaystaan berigay murmaanuun ay isqabsadaan inay culimada u keenaan wixii oo walaaqan oo kii gaalku ka buuxo dabeetana ay yiraahdaan sheekhow sharciga iyagu kanu ahaaye bal noogu gar qaado nala eega maxaa la eegi marka hore u booshaaqnaaye marka hore isku dhex jiraa mulaaqnaaye marka hore aan la kala safayninba meel loo raacaba male ta'siil sharciga male taasaan baraarujin lahaa wallahu a'lam jazakallahu khayr sheekh su'aashan waxay leedahay sheekh inaan fahansin u baahan yahay xogaa shirkadda isgaarsiinta khaasatan Safaricom waa shirkadda mobilada inta badan khadka leh waxay leedahay marka rasiidka mobilka kuugu jira uu ka dhamaado ayaa waxay ku dayminayaan 45 shilin hadhow markii ay ka qaadanayaanna konton baad ku shubaysaa 45 baad isticmaalaysaa 5 ayaga u go'aysaa macnaheedu waxa weeye taqriiban markii si fiican loo ta'siiliyo shirkaddan waxay ku daymisay muxuu ahaayay 50 shilin bay ku daymisay 45 waad isticmaalaysaa 5 waa dulsaar ay ka qaadanayso marka suuradu waa saas sheekh fadlan bismillah marar badan waa la idin sheego la idin ka waramay waana iska cadahay runtii goosashada iyo saaridda waa isku mid waa jiidis iyo qaadis hadaad imika oodan jiida iyo hadaad tunka saarto gurigii waa isla rugageyn bay dhaha Soomaalida meeshii baad geys marka hadii lagu yiraahdo waa laga jartay oo hadhow baa lagu saaray iyo hadii lagu yiraahdo waa lagu saaray marka horeba oo konton baa lagu amaahiyay 5 soo celi oo inta lagu saaro iyo hadii lagu yiraahdo konton baa lagu amaahiyay marka kayd kugu soo dhacana 5 ayaad leedahay 5 baa laga goosanaya goosashadii iyo saaridii waa jiidis iyo qaadiso waa amaah dul saar lahum amaahda kol haduu qofku wax ka ceeshayo ama wax ka goostay wixii uu ku amaahiyay ama wax ku saaray inta uu ku saaray ama ka goostay bariibadiya ma wax yar baa waa 100% imisa 10% Soomaa 10% ayaa waxaan yar intaasoo bal malaayiin qof oo imika maanta la dhaqmay oo min inta laga mid waliba wixii la amaahiyay 10% laga jaray ka war halka waxa ka soo inay riba aad u weyn markan hadaba la leeyahay waxba la goostay waxba la saarun baa laga cararaya oo muslimka sida loo yara nacnco ama loo yar wax kaliya lagu huluuqsiyo ayaa la fahmay shirkadaha waxa jira hay'adaha samafal oo ila masaakiintan waxa maahinayna
kadibna qofka 500 ayaa lagu qorayaa la oranayaa waa lagu amaahiyay 450 waa loo dhiibaya waxa laga cararaya waxba lagu saaray culimadu heblaayoy islaantii bay la hadlayaan waxay diideen wax la isa saaro meesha waxba kuma aanan saarin kontonka inoo saxeexan u bad 500 inoo saxeexan ayuu bad keenaysaa hadhow inoo kala qoran wax ku saaran ma jiro dhanka kalun baa laga soo wareego wuxuu baa laga goostay marka waa ribada lafteedii aynu riba wallahu a'lam jazakumullahu khayr saladaas baraarujinteeda mudan tahay aadna loo isticmaalo waliba aniga waxaan ogahay dadka danyarta ah aan waxoogaa 200 iyo 500 yaan ku shuban karin ba kontonleyda waa inta badan hawsha gala laakiin sidoo sheekhu sheegay way ribo yar yaraysi mal waa ribo iska cadweey kullu qardin jarra manfa'a fa waa ribo warka dadka lagu baraarujiyo su'aasha sheekhu waxay leedahay qofka dawladda u shaqeeya dawladuna ay canshuur dadka ka qaato mushaarkiisu xalaal ma yahay جزاك الله خير دولة معها دولة مسلمة معها ودولة قالا مسادرتي وحكسو قليانا أيقو نظام كودا حلال بيو أركان قالوا قاوكي وحسو قليان أيقا شروع دودا هدي بنانتا وكو بنانتا إنك كاشكي لغولا معاملون يان فيرينينا لكن حقابو إذن كسو قليديه مين midka ribada ku muaamalada gaalka haduu lacag kaash noo yimaado wala muaamalonayna haduu lacag doofaar uu ku soo gaday noo yimaado oo doofaar ka soo baxay lacag ahaan baan anagu wala muaamalonayna sidaas oo nabiga wala muaamalon jiray sallallahu alayhi wasallam uquudooda wala tasxiixiya hatta uquuda nikaaha iyo talaaqa iyo waxay isku qabeen bay shariicadu u sugaysaa la dhiimaayo wixii hore kala qaadateen iyo qaabka aad u muaamalateen iyo khalad bay ahayd wixii marka khalad ah markay islaamka soo galaan ma la saxay marka muhiim waxa dawladda uga shaqeynaysa shaqadaad hayso in shariicadu waafaqsan tahay muhiim haddaad ka shaqeynayso meesha canshuurahood adigu canshuurihii ururinayso shaqadaada khaldan marka laakiin haddaad shaqo kala hayso macallin tahay waxaad dhigaysana shariicadu usoo khilaafsaneen mushaarka dawladdu meeshuu ka yimid inaad weydiiso ma aha dantaada ma mushaarka qaado shaqadana xalaalayso تاسع مهمة معنا الشيخ وحوليه سؤاشا الشيخ الشيء اسكو ميدا مركان كاش قضيو هي مركي دين لي قادانيو قيمها ما كلا دوي كره مثلا مركو كاشي هاي وابغل markii dayn uu yahay leegala maqnaanayna waa 150 qaabka wax ma uu iibsan karaa tawalo yar guuxay maxaa ku jira way badan tahay isticmaalkeeda badan horta midba jiro marka jira waxa weeyaan nabigu wuxuu diiday bay'a fi bay'atayn iib laba iib wata inaad meeshii markuu qofku ku yimaado aad tiraahdo haddaad amaah ku doonaysana waa inta haddaad kaash bixinaysana waa inta taa looma baahno ka daata qofkii kolka ogaato wuxuu doonayaa inuu amaahanayo waxa la leeyahay hebel shaygaygu waa 100 baan ka siinaya mudada goormaad ku keenaysaa inta iyo inta waa 100 shilin qiimihiisu waad jisminaysaa waad go'aaminaysaa oo lacagtii ma seetaha waan sitaa waa 9 baan siinaya ha isku dhaxwade hadii kada marka ziyadatu thaman muqabil al-ajal khilaaf waa ku jira inta xusuusnahay culimadu way baneeyaan mar hadii beec tahay oo aanay amaahayn waa iib marka iibkii baa waxa la socda in kolku amaah yahay lacagtiisu ay badanta marka kala qadiyad asalkeedu iib yahay oo aanu amaahayn waa baneeyaan culimo badan xasba cilmi wallahu a'lam jazakallahu khair ka wuxuu leeyahay shaqana aabay wuxuu ahaa
nin ka tijaaraysta khamrada iibinteeda xoolo badanna wuu ka helay bile uu dhintay xoolihii maxaan ku sameeyaa gacantaydii hadda ku jiraan waa dhaxaleen macnaha marka seen yeelaa xoolahana asalkoodu xaaraan bay ka soo jeedaan iyo khamro see loogu taliyaa waa laga yaabaa qofka inay ku dhacday iyo mid ay ku dhacday inuu ila bixinayo oo wacyigelin uu ku samaynayo labadaba way dhacdaa fatwada labadaba la isticmaalaya laakiin jawaabteenu waxa weeyaan xoolahaasi kol haddii ay xaraam ahaayeen kol hadduu qofkaasi muslim ahaa kol haddii jahli aanu haynin ee uu ku qanacsanaa waxaasi inuu xaraam yahay oo qur-aan kariimkiisa uga warramay ogaa waxa laga maarmaana danaha guud aynu ka soo warranay in lagu bixiyo ilaahayna aad uga toobad keento imikana aad shay xalaala bilaabato oo aad xalaal ilaahay weydiisato ilaahayna wuxuu leeyahay isagoo ku bushaaraynaya waman yattaqillaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu qofka ilaahay tala saartay arrinka u dhiibta ilaahay wuu ku filan yahay kol haddaad ku qanacsantahay waxaasi xaaraan biyuura inuu ahaa khamri inuu ka soo baxa nebigu wuxuu leeyahay markuu shay ilaahay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeye khamriga waa la xaaraantinimeeye lacagtiisiina waa xaraam marka hadduu qofku xaaraan soo kasbo aad ka dhaxasho uu kuu hibeeyo isla markaana aad ku qanacsan tahay qofka muslimka ah xaaraanta ka badheedha inuu yahay inaad aduguna ka farabaxdo tawaajibkii waa taa wallahu aclam جزاك الله خير شيخ سؤال كلا وحي لهذا هل يجوز بيع الثياب الرقيقة التي لا تستر الجسد يعني دركة خفيف كا عن شركة قرينين ملقا جنع سنكرا ملقا ذكرا دركة حرشدي ثم بنانتها يبقى سويدين له مروي بنانتها هو marka xaasku ninkeeda u xiranaysa Soomaa inay xaasku ninkeeda isugu qurxiso markay maqsinkooda hurdada joogan dharka shafaafka iyagu ay isku gooni yihiin wala isticmaali kara waxa kale oo isticmaali kara dumarka isqaawinaya ragga ajaanibta istusaya banaanka ula baxaya awradooda ay ku muuqanayso labadaba talooyama badan labadaba mala waa jiraane laakiin waxaan oran karnaa malaha waxa badan taa dumarkaasi ay isticmaalayaan ee dhibka badan ee bulshada uga imanaya waxaan arki lahaa in la iska daayo qofku meelaha shubahadu ay ku jirto ama ummadda ifsaadin kara ama dararkiisa iyo dhibaatadiisu ay badan yihiin ama sida inta badan sida xaraamta ah loo isticmaalayo akhlaaqduna ku xumaanayso cawraduna ay ku muuqanayso inuu qofku iska daayo wax kale hagaagsan uu ka tijaaraysto taasan arki lahaa xasba cilmi wallahu a'lam سؤال واحد لهذا هي شيخنا ماشي نظن واقعنا ماشينا لكن ماشي نظن حق الله استعمالها وحل إلى هذا فرح بكامل جود ويلك مركا سؤال واحد لهذا هي بكامل هذه فرح لك لقاء شرعة وحيك قبته إن كستو شيخنا وحي وقام وضع كسيدر الدونا مسألة كلها مالها كهذا توضيح الأحكام كاملة السام كبلوغ المرام وشرحيا فرحاو كلا قاضي مرك الله صور وريو قفك جوري كرايستي وحو ملكيي منفعتي سئية دافتي سوو ملكيي هدي أنا مددو كدمانين مددو هذا أنا كدمانين أو مددي وكرايستا أما بلو تهاي أما وكل احترابه عيد كلا إنه كوريتشيو مستأجرا آخر ميت كلا كريسنا ينتو كوريتشيو إنه يراد أنا جو دفتي أن كاجة تناسلي أنت صف رئيسي كنا أنا إسكبح هشيس كنا واسدا سفولي كي هنتي دالهانا وش يقول له بالباكر يستون كوريتشي الله صع تاسوا بنان تايبي لين علمات ويا وحكة تناسلي وفرهان وكويب سدي شنتي سنة dheeftii uga soo bixi lahayd iyo manfaacadii uu milkiyay ayuu ku iibsaday bay leeyahay hadii laakiin muddadu ay dhamaato oo 5 sano u kiraystay uu dhamaado oo marka uu ka baxayo ma iibsan karo macna fura ma qaadan karo gurwiilka waxa la ilaa ma qaadan karo badalul khuluwi baa la ilaa
fiqiga casriga wax uu ka qaadan karaa ma jiro waayo manfacadii dheefti way ka dhamaatay ninkii lahaa baana la wareegaya qadiyadu waa marka ay isaga iyo mustaajir kale oo qof kale kiraysanaya ka dhaxaysa way isaga iyo qofkii ka kireeyay guriga lahaa marka ay taagantahay waxay culimadu leeyihiin waxa la eegayaa inay kiradu bilow tahay iyo in dhaxda la marayo haday bilow tahay qofkan guriga ka kireeyay wixii uu ka sii qadimo wuxuu noqonayaa inuu kiro u goosto oo isagoo gurigii ka kireeyay gurigiina iska leh oo kira qaadanaya haddana furihii ma qaadan kara bay leeyihiin waa inuu kirada u goosto haddii dee waqtigii kaba dhammaadayna markaana isagaa la wareegi doono marka labada xaalo ayaa loo kala qaadayaa almuhim qofkan meesha kiraystay muddadii hadday u baaqi tahay wuu sii kirayn karayaa waxaan u qaadan karayaa waxaa intaa dulsaar intaa furaha lacagta furaha waa qaadan ee muddadu waa inay jirtay baaqita qadiyada waxa ku kala duwan qofka kiraysanaya iyo ka guriga leeyna way ku kala duwan yihiin oo kan guriga leey wuxuu kaga duwan yahay isagu kiruu qaadanaya marka bilowga u horeeya ee uu ka kiraynayo inuu yiraahdo intana idib kiradiina keen noqon mayso wax soconaya ma aha haduu ka qaado uu ka qaadi karaa laakiin kiruu goosanaya marka dhexda la maraya hadii laakiin uu arintaa soo bandhigo ila hebelow iskaga bax meesha aniga igu soo wareeji oo adugu de iskaga bax oo isna uu aqbalo ula waayo waan ka baxayaa ila 5 sano 3 baa ay haray 3 de furihii isi oo raada waayo guriga ana la wareegaye 100 kun qaado furaha iskagana bax aniga la haygu wareeji oo sidaa uu aqbalo waan saxaysaabay uu tanaasulay manfaacadiisii buu ka tanaasulay marka marna maaligii baa wax bixinaya marna maaligii baa wax qaadanaya labada xaalad loo kala qaadaya laakiin ninka kale isagu kiraysanaya way u banaan tahay fure uu bixin karaa ninkan wax kiraynaya hore hadii muddadii u hadhantay intaasan ka xusuusnaa sheekuna wuxuu ku daray wafranta wallahu a'lam bismillah inta sheekhu sheegay waxa uu dari lahaa oo uu dhaqayn lahaa waxa sharti ka dhigayaan culimadu in ay tahay furaha qaadashadiisu shay urfi ah oo meesha ka jira haduusan meesha ka jirin ayaduna waa mamnuuc مثلا hadii dukaamada lagu kala qaato urfiga iyo caadada oo guri la degaya saarato hadana guriga la degayo furo lagu kala qaato malan urfi ma shay urfi waa inuu yahay oo laga isticmaalo meesha waxa kale oo idaafayn lahaa hadalka sheekha maaliga guriga iska leh oo dukaanka iska leh markuu ugu horeysay uu kiraynayo ama uu iibsanayo hadii ay kala duwan tahay fura markuu qaato kiradu dukaanka ka qaadan lahaa iyo markuu san fura qaadanin kiradu qaadanaya haday kala duwan tahay oo furaha uu qaatay uu keenayo inay kiradii nusqaanto markaan uu qaadan karaa laarkaan waxay xisaabsan tahay nusqaantan kirada gashay ayaa waxa xisaabsan furihii ومثلا وانا سيدي هذا او بدن tahay way dukaanka hadaan fura laga qaadanin kiradiisu مثلا waa 20 kun مثلا markii fura la qaatana wuxuu iimaanayaa 10 kun ninkan milkiilaha guriga leh 10 kun ee furaha waxaan u jeedaa kirada ka soo baxday yuu fura ahaan loo xisaabinay taas haday jirto waana urfiga hadda meeshan jaariga ka ayaduna la baas laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye waa kiradii ama fura qaad ama qaadani waa isku mid lacagtan furaheed qaadanayso markaas meel ay ku dhacayso ma jirto maxay xisaabsantaa ilaa kiradii waad qaadanaysaa lacagtan bilaash baad ku qaadanaysaa way marka wayla waa inay gasho xisaabta kirada waa inay wax ka dhinto xoolahan aad qaadatay halkaas ay marka xisaabtoodu gasho ujra muajjal oo kale marka noqonaysa macna qayb ujradii kamid oo soo hormartay bay noqonaysaa marka intaas ayaa ku idaafayna hadalka sheekh ساشا ugu dambaysa insha Allah taala waqtiga ina haya waxa weeye xuleeyahay walaalkani
walaalka ayaa dhintay buu leeyahay wuxuu dardaarmay inuu wuxuu ka dhintay hooyo la siiyo hooyana waxay tiri masjid ayaan ugu darayaa lacagta uu ka dhintay kadibna hooyo ayaa dhimatay طبعا iyadoo masaajidkiisa lacagtiina aniga ayaa hayo igu soo wareegtay ma dhaxal bay noqonaysaa mise masaajidkii uu dardaarmay waxaan dhihi lahaa masaajidkii hooyo rabtay inay ugu dhisto ayaa loogu dhisayaa dardaaranka marka uu qofku dardaarmo waxa uu xaq u leeyahay 3 meelood oo meel xoolihiisa ayuu xaq u leeyahay dardaaran labada kale soo haray xaq uma laha dhaxlayaasha ayay ka go'daa dhaxlayaasha haddii ay ku jiraan caruur yar yar ama dad waalan oo miir qabin oo aqligoodu dhamayn iyo ciyaal aan qaangaarayn haday ku jiraan waxba la weydiin maayo waxooda waa la siinuu laakiin dadka aqliga leh waaweyn labada qoriye soo haray waxa la leeyahay dardaaranka sida uu qofkaasi sheegay miyaa ku socodsiinaysaan bise wixiini waa doonaysaan jawaabtay bixiyaan baa la eegaya haday yiraahdaan sida waalidku sheegay waa anaguna waanu ka hadhnay waxaas dee way soconaysaa markaa oo dardaarankaasi naafid buu noqonay haday diidaan ay yiraahdaan 3 dalool oo meesha uu xaq u leeyahay mooy labada meelood kale waanu doonaynaa wala siinayaa iyaga xaq u ka go'daa marka dardaaranka athuluthu wa thuluthu kathiir buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofku xooleysa wuxuu dardaarmi karayaa 3 meelood oo meel iyadoo waliba ku badan laakiin sharcigu waa sugaya dadka yar yar iyaga ma khusayso dadka waalana ma khusayso kuwa qaangaarka ah waxa la leeyahay thuluthka wixii ka badan ma ogoshihiin dardaaranka lagu daro waan ogolahay waa la fulinaya ma ogolin intoodii way qaadanayaan marka sida nimka la sheegay waxay noqonaysaa dhaxlayaashii in la weydiiyo oo dib loogu noqdo jawaabta ay bixiyaan haday ha yiraahdaanna la sii daayo kala daan ciyaal ku jirin haday diidaana waxoodii la siiyo wallahu a'lam al-mirdon sheekh dib u leeyahay su'aashu waxay ahayd hooyadii buu u dardaarmay macnaha ruux kale ma aha cid u dardaarmay waa hooyo marka xukunka isbedelay waxa uu dardaarmay cid uu dardaarmay leeyahay hooyo hala siiyo buu leeyahay Soomaa deemeeshi waxa la eegay dhaxlayaal kale inay joogaan bardo inkastoo midka meesha yaala uu yahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay dadyo ilaahay qof walba uu siiyay xaqiisii in allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwari war qof walba ilaahay xaqiisii uu siiyay dhaxlayaasha qof dardaaran lihima jiro oo qofku ama dardaaran buu leeyahay ama dhaxal buu leeyahay marka hooyo maadaama ay dhaxalka wax ku leedahay iyadu dardaaran malaha fala wasiyata liwarith qof dhaxalihi dardaaran male ama dardaaran buu yeelanayaa dhaxalku ka baxaya oo dadka aan dhaxlayaasha ku jirin ama wuxuu yeelanayaa dhaxal oo dardaaranku meesha uu ka baxaya waxa se isweydiin leh dardaaran oo maxaa tahay waxay culimadu ku macneeyaan tabarruc